maanta waxaan idin soo gudbinayaa muuqaal ku saabsan qaabka marka aan wax ku soo gudbiyo in badan dadku waxay soo weydiiyeen miyi baa joogtaa xaggeed internet ka heshaa xaggeed koronto ka heshaa shaqada ugu horreeyaan qabto waxay tahay solar waxa ujeedaan dad badan baa soo su'aala xaggeed mobilka ka dabaysata ama qalabka wax ku dubto haddaba ila arka waa kana waa solar baa loo yaqaanaa qoraxda ayaa keenaysa marka shaqada ugu horreysa ee subax kasta markaan indhaha kala qaado salaadii tukado waa shaqadan halkaas aan ku xirxirayo internet baan kaga raadinaya oo waxa weey udubkaas ama tiirkaas aad taqaanid ayaan soo qaatay kadibna waan ku xiraya xarka lagu xirxiraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan wanaagsan meel kasta joogtaan iyo si walba la socotaanba dhamaantii waan salaam walaalaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالي وناكسن أما هبي وناكسن أخيارتا كحيران كنال كان أغانشو مانتا ومالينتيني وحان دمانتين سيوة ذا جرأة وغا قيب قادن دونا وحان دمانتين سيوة ذا جرأة وصمين دونا وحي أغفعنا أن صمينو أفر سنة أيان اسكو حيران نهي أفر سنة أيان أغانشا اسكالا سعنا هادبا كورما مانتا هدي أن شي اسكالا قيب قادنو أذنك يا أنيغا أو كنال كان وحكسو قد بيو فضلا موقال كان دميسو في جيجنان بوحدان aan lahaano inta aan la socono sababtoo ah hadal muhiim ah ayaa soo socdo haddaan nahay Soomaali waxaan awoodnaa in aan buuraha dhaqaajino waan isnaqaanaa tabcan Soomaali ayaan nahay in aan sameeyno wax u muuqdo mucjiso caalamka gaar ahaan dadka muuqaalada sameeyo waxa caadi ah in ay dadka ku xiran ka helaan garab istaagid sidii uu u sameyn lahaa u sii horumarin lahaa muuqaaladiisa waana mid caadi ah oo caalamka dhan ka dhacdo muujinaysana qiimaha mujtamaca qofkaas uu ka soo jeedo reer galbeedka way sameeyaan carabta way sameeyaan waliba waxaad arkaysaa dhalinyaro gameska ciyaaro oo leeyahay ninkan kanaal YouTube ayuu leeyahay aan taageerna maanta haddaba maanta sidaan soo sheegnayba waa maalinteen haddaan nahay Soomaali maanta waxaan garab istaagaynaa oo aan taageeraynaa gabar Soomaaliyeed oo Ilaahay karti siiyay miyigana muuqaal ka soo sameeyso qorsheynaysana waxyaabo ugu fiican waxay qorsheynaysaa gabadhan in ay booqato dhammaan miyiga inta afka Soomaaliga ku hadasho waa qofka ugu mudan in la taageero maanta waa qofka ugu mudan in la garab istaago arrin muujinaya tabcan macdanka dhabta ee mujtamaca Soomaaliyeed markaan gabadhan garab istaagayno aan ku taageerayno in ay sii wado waxa ay wado waxay ka dhigan tahay arrin fasirayo ama arrin muujinayo in aan ka soo jeedno mujtamac nool taageerida aan taageerayno waa sidii ay u heli lahayd qalab ay ku sii hormariso muuqaal samaynta kanaalkeeda agabkeeda safarada ay galaysana kaalin weyn ka geysan doona gabadhan iyo kanaalkeeda oo lagu magacaabo ubax 24 saac la soo dhaafay ayaan bartay 24 saac ee la soo dhaafay ayaa iigu horeysay gabadhan kadibna aan daawaday inta badan muuqaalada ay samayso kadibna waan raadiyay anigoo og in ay Soomaalida ay garab istaagi doonaan in dhammaanteen aan garab istaagi doono Soomaalida ayaan naqana tabcan dhammaanteen in aan garab istaagi doono gabadhan hawl muhiim ayay haysaa qaabka runtii ugu wanaagsan ee qof lagu garab istaagi karana waa inaan u taageerno qaab maadi ah arrinku markaan ma ahan ku saabira si share garay tabcan waan arrin fiican inaan kanaalkeeda ku saabirno laakiin maanta wax kale ka hadlaynaa laakiin arrinku maanta waa inaan qaab maadi u garab istaagnaa numberkan hortanada ka muuqdo eber 615 eber 786 waxaa leh ubax Cabdullaahi Culusow oo ah gabadha kanaalkaas leh dhaqankaaba channel haddaad dalka joogto haddaad dibadda joogto shilinkii yacni aad mashruuca gabadhan ku taageerayso si toos ayuu u gaar xitaa asagoona meel kala sii marin asagoona qof kala sii marin ayuu si toos u gaari gabadhan wasiid kale aana sii marin anigaan Cumar xitaa oo mawduucan samaynayo ayna isoo mari doonin waxaad uga qayb qaadanayso gabadhan mashruuceeda hawsheedu kaliya waa inaan idinku baaqo waanan daawan doonaa jawaabta ubax ay ka bixin doonto markay taageeradeena gaarto anigoo Cumar Maxamed Inshaar ah ayaa bilaabayo laakiin wax yar ha isdhihin $10 $5 $1 $2 maxay tari ha isdhihin runtii waan badannahay boqolaal kun ayaan nahay waxaana hubaa shilin lagu daray shilin inuu meel gaarayo numberkaas ayaana loogu aadin karaa waana qaabka ugu fiican runtii ama wasiilada ugu fiican ee gabadhaas lagu gaarsiin karo sababtoo Soomaali tabcan credit card iyo account bank inta badan ma lahan numberkeedaas ayaa loogu aadin karaa anigoo ah Cumar Maxamed Inshaar oo idinku dhiirigelinaya arrinkan waxaan ku bilaabayaa lacag ah $200 ayaan uga qayb qaadanayaa taageerida gabadhan ficlan lacagtaana way gaartay anigoo hubinayo lacagtii waan la hadlay ubax lacagtii way soo gaartay taasoo ah in ay dhammaan tahay wixii aad ugu tala gasheen in ay gaarto
nambarkan hortanada ka muuqdo waa taageeridda mashruuca gabadhaas ubax ah waana noo bilaabay haddaba maxaad sugayseen haya soomaaliyey gabadhaas waxaan hubaa in ay dhammaanteena sharfi doonto in ay fursad u heli doonto horumarinta muuqaalada ay samayso siday qorshaynayso in ay meelo badan u safarto waxaan nafteena tusaynaa maanta in aan qof in aan ku taageerno in uu waxaan uu samaynayo aan ka helnay in hawshan ay hayso ay tahay hawl muhiima qabiilkeeda aanan aqoonin wax kale aanan ku taageeraynin aan taageerno ubax annagoo leh halkaas ka sii wad waana ku garab istaagaynaa runtii in ay sii waddo muuqaalada ay samaynayso dabcan waadna arkayseen dhibka ay ka marayso in ay muuqaal samayso ay macquul tahay in ay hal muuqaal samayso in ay ku qaadato 10 kilomitir inay jarto maanta sidaan soo sheegnayba waa maalinteena annaga Soomaali ahaan maalin waxa arkayay nin dhalinyaro carbeed oo YouTuber ah dhalinyaro kale oo carbeed oo guryaha hooyadood iska joogo magaalooyin waaweyn ku nool dhaqaale ahaan fiican ayuu lahaa dadka ku xiran ka dalbanayay in ay dhalinyaradaas taageeraan in ay muuqaalada sameeyaan in ay garab istaagaan runtii wayna taageeraan marka maxaad u malayn gabadhan halkaas ku nool dadaalkaas bixinaysa waa qofka ugu mudan in la taageero caalamka waxaa ka jira dabcan YouTube-ka wax lagu magacaabo Patreon oo ah in uu qofka hadda furto kadibna dadka ku xiran kanaalkaas oo mid walba bishii $3 $5 $10 ayagoo la dadku waan kugu taageeraynaa muuqaaladan aad samaynayso طبعا Soomaalida inta badan Patreon-ka qaabkan uu nagu adag yahay waana halkaan mar gabadhan ubaxa aan taageerno aan garab istaagno waxaan hubaa runtii taageeridan aan taageerayno in ay wax badan ku soo kordhin doonto in arrinkan uu ka qayb qaadan doono mujtamaceena wacyi ahaan inuu koro in aanan ahayn mujtamac xirxiran in aanan ahayn mujtamac aanan qof ayaga ka mid oo ina wax kale ku taageeri kaliya qofkan wax qiimo leh inuu sameeyo ku taageer inaan nahay nambarka waa kana hortanada ka muuqda mar kale gabadhaas ubax ah waxay naga mudan tahay taageero ubax waxay naga mudan tahay in aan garab istaagno haddaba ka labayn ha dhayalsan ha isku hadlayn ha dhihin 500 kun oo qof ku dhawaad ayaa ku xiran Umar hebel ayaa ugu tabarucay ama hebel kameel hebel jooga ayaa ugu tabarucay maya mashruucan gabadhan dhamaanteen tuulada ugu yaraad ku nooshay mashruucan taageer gabadhaas aan garab istaagno kaliya xiriirka igala dhaxay mashruucan ay gabadha waa in aan maanta haysto meel aan ku hadli karo meel ay dad badan ku xirayeen meel aan dhihi karo Soomaali gabadhaas aan taageerno waxaad uga qayb qaadanaysaa runtii iyo meel ay aadayso waa mid u gaar ah waa mid aadaysa gabadhan ubaxa aniga ima soo marayso aniga hawsheeda waa inaan idinku baaqo waana gutay marka mashruucan gabadhan aan taageerno mawduucan intaan ku eegyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh